sirtaada iyo xogtaada waa la kaydiyey waana ixtiraamaynaa macluumaadkaaga xasaasiga ah. erayadaasi waxay ka mid ahaayeen siyaasadda asturan ee ay soo bandhigeen Brian Acton iyo John Coom oo ah soo saarayaasha barnaamijka caanka ku ah fariimaha la isugu diro ee WhatsApp-ka ka hor intii aysan daafurin. laakiin wax ka beddelka barnaamijkooda iyo bilowgii dadka adeegsada loo diro fariin ku saabsan in macluumaadkaaga WhatsApp-ka lala wadaagayo shirkadda Facebook ayaa waxay haatan muuqataa in asturnaanta siraha ee qofka iyo ilaalada macluumaadka u gaarka ah mid shuruucdiisa la baalmaray, iyadoo madaxda shirkaddu horey u ballan qaadeen inay ilaalin doonaan xogahaasi. waxayna taasi sababtay in dad aad u fara badan maalmihii la soo dhaafay oo u badan wariyaal iyo siyaasiyiin ay ku midoobaan bara cusub oo ay ku wada xidhiidhaan isuguna gudbiyaan macluumaadka. tani waxay timid kadib markii shirkadda WhatsApp-ku ay shaacisay oo ay daabacday in barnaamijku ururinayo xogahaaga shakhsiga iyo qaabab aad u isticmaashid oo ay ka midka yihiin fariimaha statiska iyo ku hadalkiisaba, waxayna la baxayaan xogta moobilka khaaska ku ah marka ay doonaan, taasoo ka dhigtay in dadku gaar ahaan shaqaalaha warbaahinta ee dalalka islaamka iyo siyaasiyiintuba raadiyaan beddel kale oo ay kaga maarmaan barnaamijka WhatsApp-ka. sidaas darteed abka Turkiga ee lagu magacaabo Beep ayaa noqday beddelka ugu fiicnaa oo ay dad badani u hamuum qabeen inay kaga kaaftoomaan WhatsApp-ka, iyagoo durbadiiba bilaabay inay soo dejistaan iskana diiwaan geliyaan abkan cusub. Saciid Ridwaan oo ah mas'uul ka tirsan mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala Mareykanka Gaza ee dalka Falastiin ayaa ku soo warramay inuu ka wareejiyay dhammaan macluumaadkii ay shaqaaluhu ku wadaagi jireen shabakadda sida wararka iyo bogagga isgaarsiinta ee WhatsApp-ka, uuna ku wareejiyay abka cusub ee Turkigu soo saaray ee loo yaqaan Beep. arrintan ayaa timid kadib markii shirkadda WhatsApp-ku ku shaacisay isbeddel lagu sameynayo barnaamijkeeda, iyadoo sheegtay in qofka diida shuruucdaasi laga joojin doono inuu sii adeegsado WhatsApp-ka marka la gaadho bisha February 8, 2021. xeerkaas oo ka mid ah in xogahaaga gaarka ah iyo macluumaadkaagu noqonayaan kuwo markii la doono lala bixi karo oo aysan kuu gaar ahayn. sidaas darteedna waxay dadku haatan u jeesadeen inay raadiyaan ikhtiyaaro kale oo ay ku jiraan tan Turkiga ee Beep. Telegram iyo ababka loo yaqaan Signal, taasoo markii dambana kadib baaritaano dheer la sameeyay lagu ogaaday ammaanka iyo shaqada abka Beep, sida uu xaqiijiyay Saciid Ridwaan oo yiri waxaan door bidnay inaan Beep noqoto kanaalkeena cusub ee gaarka ah aanu leenahay anagoo ka bedelinayna kuwii hore ee gaarka loo lahaa, maxaa yeelay shirkadani waxay leedahay astaamo u gaar ah iyo hufnaan sare. Ridwaan oo waraysi gaar ah siinayay TRT ayaa ku sheegay in barnaamijka loo yaqaan Beep uu leeyahay faa'iidooyin badan, waxaana loo arkaa mid ka mid ah barnaamijyadii ugu horreeyay ee laga aasaasay wadamada islaamka, iyadoo Turkigu noqday meel ku habboon in bulshada islaamku si toos ah ugu soo hirtaan, siiba wariyaasha iyo siyaasiyiinta ka howlgala dalalka islaamka. waana tan keentay in wariyaasha reer Falastiin iyo kuwo kaleba ay xogahooda gaar ahaaneed ku dirsadaan ku shaqaystaan abkan cusub. dhanka kale, arrintan waxay gacan weyn ka geysan doontaa xifdinta macluumaadka muslimiinta iyo inaan si fudud lagu heli karin oo aan lagula wadaagi karin sirdoonka reer galbeedka iyo Yuhuudda oo inta badan adeegsada hanaanka ay shirkadda WhatsApp-ku ugu fududeynayso inay u dhacaan xogahaaga marka loo eego xiriirka ballaaran oo la leeyahay reer galbeedka. wuxuuna horey u jabiyey xeerarka asturnaanta bogag badan oo warbaahineed, isaga oo markii dambena ka shaqeeyay in la xidho. laakiin abkan cusub ee Beep ee Turkishka ah, sida uu sheegayo Ridwaan, waxay kuu sahlayaan inaad hesho xorriyad ballaaran oo ka weyn tan WhatsApp-ku bixiyo, waxayna ku adkaysanayaan inaad si ammaan ah u isticmaashid moobilkaaga, taasoo u ogolaan doonta wariyaasha inay si fudud fariimaha iyo waxyaabaha kale isugu diraan si ka duwan sidii hore. xirfadleyda warbaahineed sida wariyaasha maaha kaliya dadka u weecday barnaamijkan Beep ee waxaa kaloo ka mid noqday barnaamijkan inta badan dadka hal abuurka leh ee wax ka qora arrimaha siyaasadda iyo barnaamijyada kale ee xasaasiga ah. Khalid Shaabir oo ka mid ahaa dadkaasi una dhashay dalka Falastiin wuxuu ku xaqiijiyay inuu horey ugu biiray abkan Beep, laakiin ay kadib si degdeg ah u soo dejisteen markii shirkadda WhatsApp-ku ay bedeshay siyaasadeedu hore ayna ku khasabtay macaamiisheeda in xogahooda lala wadaagi doono shirkadaha Facebook iyo kuwa kale ee shirkadda Facebook hoos yimaada, iyadoo shirkaddu ay sidoo kale soo bandhigtay in barnaamijkeeda la iibsan karo haddii loo baahdo. inkastoo abkani horey u jiray, laakiin ma uusan ahayn mid ku baahsan bulshada islaamka sida WhatsApp-ka oo kale oo kaalmaha hore kagama jirin kuwa ugu isticmaalka badan ee dunida, laakiin hadda wuxuu noqday mid caan ah oo aad u baahsan, iyadoo wax farqi ah oo muuqda aysan ku kala duwanayn labadan barnaamij, ayna yihiin kuwo aad isugu dhow marka la eego 90% adeegyada laga helo WhatsApp-ka laga heli karo Beep, taasina lagama helin barnaamijyada kale ee uu ka mid yahay Signal. wuxuuna barnaamijka Beep leeyahay astaamo u gaar ah, waana goob awood badan
badan oo ay u gaar yihiin xawaare iyo adeegsi fudud oo tayadiisu sareyso sida la mid ah isticmaalka WhatsApp-ka. dhanka kale bilowgii ololihii saxafiyiinta reer Falastiin iyo xirfadlayaasha ka howlgala warbaahinada kala gedisan ee dunida islaamku ay u bedeshaan abka Turkiga ee Beep ayaa timid kadib markii la xiray bogag badan oo Falastiiniyiintu leedahay oo ay ku jiraan rag wariyaal ah waxayna raadinayeen bedel ama goob ay uga guuraan WhatsApp-ka si ay u ilaashadaan xogtooda una sii wataan shaqadooda ayna u soo bandhigaan waxyaabaha dhabta ah ee ka jira dalka Falastiin. sidaas awgeed tallaabadii ku soo aaday isbedelkii ku yimid xeerarka WhatsApp-ku waxay wariyaasha u dedejisay inay markiiba ka guuraan abka Beep. Ashraf Mushtaah oo ah khabiir ku xeel dheer macluumaadka iyo farsamada kana soo jeeda Falastiin kaasoo goobjoog ka ahaa in adeegsiga barnaamijka Beep ee aadka loogu soo guuray iyo qaababka loo isticmaalayo wuxuuna ku sharaxay waraysi gaar ah uu la yeeshay TRT Carabi muhiimadda iyo astaamaha uu leeyahay barnaamijka cusub ee Turkiga ah maadaama uu kaalinta saddexaad xilligan ka galay barnaamijyada kale ee Signalka iyo Telegram labadaba sidoo kale wuxuu noqday ababka ugu iibsiga badan lagana iibsado shirkadda Google maalmihii ugu dambeeyay kadib markii mas'uuliyiinta iyo hogaamiyaasha Turkigu ay ku baaqeen in bedel ahaan loo isticmaalo kadib markii maamulka shirkadda WhatsApp ku dhawaaqeen ku xadgudubka xogaha gaarka ah iyo in la wadaagayo shirkadda Facebook iyo kuwa kale oo hoos yimaada shirkadahaasi iyadoo la wada ogsoon yahay in abka WhatsApp-ku awood weyn u leeyahay helitaanka kaydka moobilada ee shakhsigu uu ku isticmaalayo iyo macluumaadka la xiriira meelaha aad la hadashay si fududna lagu heli karo macluumaadkaaga ku saabsan moobilkaaga shabakadda internetka ee aad adeegsanaysid iyo astaamo kale sida uu sheegay Ashraf. abka Turkiga ee Beep ma aha mid u gacan geli kara Yuhuudda iyo reer galbeedka sidaas darteed macaamiishu waxay heli doonaan xifdinta macluumaadkooda taasoo ku salaysan siyaasadda asturnaanta ee aadka u sareysa ee ay shirkadda soo saarta abkan isticmaasho maadaama gacmaha shisheeye ee reer galbeedka iyo Yuhuuddu aysan wax awood ah ku lahayn hay'adahaasi Turkiga ah taasoo ka dhigaysa mid ammaan u ah saxafiyiinta iyo xirfadlayaasha ka howlgala warbaahinada caalamul islaam iyo midda marinka qasaba ay isticmaalaan sidoo kale tan iyo bishii November 15keedii 2019 basaasiinta Israa'iil ee loo yaqaano Mossad wuxuu xadgudubyo ka geystay dhulka reer Falastiin isagoo u dhacay xogaha shakhsiga ah ee Falastiiniyiin badan oo ka mid ahaa mulkiilayaasha hay'adaha warbaahinta iyo wariyaal kadibna la xirxiray iyadoo goobahoodii shaqo la xiray xilli ay wadeen caburinta ay ku hayaan marinka qasa iyo dadka reer Falastiin. waxaa xusid mudan in barnaamijka Beep uu yahay barnaamij fariimaha la isugu diro oo ay soo bandhigtay shirkadda Turkcell ee Turkiga adigoo si bilaash ah kaga soo degsan kara moobilkaaga taasoo ku ogolaanaysa inaad si fudud oo la mid ah kan WhatsApp-ka kula xiriiri kartid asxaabtaada iyo qoysaska si maqal iyo muuqaalba ah oo dhammaantood tayo sare leh oo waliba waxaad si wada jir ah ama group ah ugala hadli kartaa cidda aad danaynayso waxaadna u diri kartaa sawiro iyo fiidiyoyo isla markaana aad la wadaagi kartaa bartaada. abkani wuxuu kaloo bixiyaa waxyaabo xiiso leh sida inaad si fudud ku daalacan kartid isboortiga iyo wargeysyada dunida waxaadna ka daawan kartaa kanaalada wararka waxaadna iska diiwaan gelin kartaa adeegga maaliyadeed ee shirkadda adigoo ka faa'iideysanaya adeegga xawaaladaha iyo daryeelka macaamiisha iyo sidoo kale isagoo kuu turjumaya afaf kale iyo waxyaabo badan oo ay ka midka yihiin adeegyada tiknoolajiyadda ee casriga ah. dhinaciisana madaxweynaha Turkiga Tayyip ayaa xaqiijiyay in dalkiisa uusan u hoggaansami doonin cadaadiska shirkadda baraha bulshada ee isku tixgelinaya inay ka sareeyaan sharciga marka la eego ilaalinta xuquuqda dadkeena. hadal uu jeediyay Arbacadii Erdogan wuxuu ku sheegay in shirkadaha warbaahinta bulshada aysan fulin ku dhawaad mid ka mid ah go'aamadii maxkamadaha Turkiga ee ku saabsanaa wax ka qabashada iyo raacdaynta argagixisada ee reer galbeedka danahooda ku ilaashadaan. Erdogan ayaa yiri sida aynan u ogolaan doonin jiritaanka argagixisada ee ka jirta xuduudaha dalkeena mana aqbali karno in olole dacaayada iyo been abuur ah laga sameeyo dunida taasoo markii dambena keentay in Erdogan uu iska diiwaan geliyay labada barnaamij ee kala ah Beep iyo Telegram isagoo ka baxay isticmaalka barnaamijka shirkadda WhatsApp. isku soo wada duuba oo shirkadda WhatsApp-ka ayaa dhankeeda iyaduna soo saartay bayaan cusub isbedelada xagga sharciga ee marka la gaaro bisha labaad. shirkadda WhatsApp-na waxay ku dhawaaqday in ay joojisay qorshihii ay bisha 8 February ama Febraayo ay ku bedeli lahayd siyaasadda ama qaabka cusub ee xogta
xogaha la soo wadaagayo iyo waliba waxyaalaha arrintaas ku xeerna waxayna sheegeen in ay 15 bisha May dib loogu dhigay qorshaha cusub dalal ay kamid tahay dalalka Turkiga ayaa waxay ku dhawaaqeen inay sameysteen wax loo yaqaan Turkcell iyo Turkey Telecom iyo kuwa kale oo ay kamid yihiin shirkado waaweyn oo iyaguna ku dhawaaqay inay sameynayaan shirkadaha qaarkood ayaa iyaguna sheegay in PBI iyo kuwa kale ay darboba soo dejisteen shirkada WhatsApp ayaa barihi ugu dambeysay waxay sheegaysay in ay doonayso in ay xaqiijiso arrimo waaweyn oo dhinaca markaasi ay yiraahdeen dabcan ku saabsan dhinaca ammaanka WhatsApp ka kor qaado